asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan sida aad maqlayseen 40 daqiiqo ka hor waxaa lagu soo wargeliyay in ilmo yar oo Soomaaliyeed oo gabadh ah 6 jir ilaa 7 jir ah laga helay moolka Karameel oo gabadh ah oo lunsan waxa isoo wacay yarka security-ga iyo dad business meesha ku lahaa ilmihii yara waxaan islaaf garanay inaan loo dhiibin booliska sababtoo ah waxyaalo badan baa ka dhalan kara in dhibaato faamiga ay jirta laga yaabaa sidaa darteed waxaan soo galay Facebook live iyo Snapchat isla markiiba waxaa layla soo xiriiray soo wacay Liibaan Xasan Quruuf oo aan madeernahay wuxuu ii sheegay gabadha markaan magaceedii geliyay meesha in gabadha waxay sheegtay hooyadeed la yiraahdo Ayaan aabaheedna la yiraahdo Yaxya marka Liibaan oo orday ay soo wacay wuxuu dhahay war Cabdi Xakiin ilmaha lumay waan hayaa waalidkii dhalay daris baan u ahayn waan gartay waxaan wacay buu dhahay xaaskaygii baan wacay ka bacdi waxaan soo ilmihii saas aha ma haabay tiri gabadhii dhashay waxay isku reer ay yihiin gabadhii baa lagu soo xiray hooyada ilmaha dhashay waxay sheegtay in saaka ilmaha galabta la soo xaday oo laga soo xaday oo degan yihiin xaafadda Saint-Paul booliska ay wargelisay booliskuna ay baadi goobayaan sidaa darteed waxay iga codsadeen inaan ku xiro gabdhihii hayay ee Karameel joogay gabdhihii baan khadka isku galiyay iyakii sukuradka ahaa way wada hadleen markay wada hadleenna waxaan isku afgaranay inay booliskii Saint-Paul imaanayaan meesha oo waalidkii dhalay ay la socdaan sidaa darteedna ay hayaan inta waalidkii iyo boolisku ay imaanayaan run ahaantii waa arrin aad iyo aad u argagaxa yani ilmaha Soomaaliyeed oo inta laga soo xaday Saint-Paul la keenay Karameel sidaa darteed arrintan arrin laga seexanaya maaha security-ka Karameel iyo maamulka oo dhan iyo Minneapolis police oo dhan waa la wargelinayaa suuqa Karameel wuxuu leeyahay kaamarad buu leeyahay meel walba kaamaraday leedahay waa in la daba galaa ilmahaas ciddii soo gelisay meesha keeskan kees laga seexan karo maaha run ahaantii aad iyo aad baan uga naxay markii hore yani waxaan dareemay aan sir waxaa jira waalid badan oo Soomaaliyeed oo waliba hooyooyin badan oo dayacan oo gobolkan jooga kuwaas oo iska xanuunsanaya depression iska hayaan ilmihii Soomaaliyeed ee wadanka joogay badidooda waxay qabaan autism waalidkii waalibay waxa arkaysaa hooyo haysata 6 caruur oo 5 kamid ay autism yihiin aabihiina uu ka tagay oo magaalada uu wareegayo marka isla hadal baa imaan kara booq baa imaan kara yani hooyada mar walba waxa weeyaan dhibanaha guriga waa dhibanaha guriga hooyadu mar walba oo yani wax kasta oo gurigaas dhibaato ka dhaca oo dhibaato ku timaadan hooyadaas ay dusha ka fuulaan run ahaantii waa wax aad iyo aad looga naxo marka hore waa naxay wax because waxaan ogahay xaaladda ka jirta gobolka Minnesota in hooyooyin badan caruurihii lagu dayacay laga dhaqaaqay depression iska haya stressayo yani hooyadu markay hayso 3 caruur autism ama 4 caruur autism ama 2 autism oo yani waliba qalqaali ay yihiin caruurtiina ay isku badan tahay isku nuug ay yihiin aabel celiya aanay joogin ehelkii qaar iska shaqo tagay wadanka waa aragteen dhibkiisa aad buu dhibkiisa u badan yahay hooyadii waxa ku dhufanaya isku buuq marka iyada lafteedii ayaa waxay u baahan tahay xaalad caafimaad oo yani in la daryeelo sababtoo yani dhibka ay qabto waa dhib aad iyo aad u weyn marka wallahi run ahaantii markii hore waa naxay waxaan isri ilmahan dacna hooyooyinka xanuunsanaya oo kale ilmaha haysteen weeye laakiin ma sha Allah ilmaha yar aqli badan weeyaan magacii aabaheeda sheegtay magacii hooyadeeda sheegtay magacii hooyadeeda sheegtay marka isla markiiba waa la helay sidaa darteed insha Allah bal ilaahay khayr ka dhigo ummadda Soomaaliyeed laakiin waxa isweydiin mudan sug live baan ku jiraa ilmo yar oo lumay baan la helay baafinayaan kugu soo wacay qabo okay sidaa darteed waa in laga hadhimayo kiiskan ilmahaas qofkii soo galiyay Karameel oo Saint-Paul ka soo qaaday waa in la helo sababtoo ah waalidiin badan Soomaali badan ayaa arrintan ku dhacaysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la helay waa ware waxa soo galay city council walaalkay Jamaal Cusmaan Jamaal oo ku salaamaya my brother inaad argacaliye
aad baan kuu salaamayaa marka insha allah jamaal oo ogeysiinayaa jamaal cusmaan waxaa dhacday in caawal ay soo wacay sakuuradka caramel iyo gabdho business kule caramel oo igu wargeliyeen ilmo yar oo daadiisa u dhaxaysa 6 jir ilaa iyo 7 jir oo baadi ah oo lumay laga helay oo gabadha moolka caramel isla markiiba waxay iga codsadeen in aan meediyaha galo oo ilmihii geliyo markii aan soo galay isla wax yar ka bacdi 40 minutes ka bacdi liibaan xasan quruuf baa soo wacay oo in adeerka isagana wuxuuba gartay ilmihii markii ilmihii yaraa hooyadiis waxay tiri ayaan baa la yiraahdaa aabihiisna waxa la dhahaabay tiri yaxye marka liibaan baa soo ciyir daris baanu nahay hooyadii ugu soo xiray waxay sheegtay ilmaha in symbol laga soo xaday galabta laga soo xaday booliiska symbol ay raadinayeen sida darteed jamaal waxaan isku afgaranay in aan booliiskii lawcin yarka sukuuradka iyo caramel booliiska wicin ilmihii gacanta lagu hayo booliiskii symbol iyo hooyadiina hadda ay u soo socdaan booliiskaaba baadi goobay hooyadu wax qalada ma lahayn laakiin city council jamaal cusmaan waxaan rabay inaan ku ogeysiiyo in ilmahaas caramel qofkii soo geliyay aan laga hadin oo chief booliiskii hadda lala hadlo jamaal run ahaantii waa nin habeen iyo maalin u taagan waxqabadka ummadda meel kasta ay wax ka dhacaanna uu ogyahay marka insha allah hadda kolley tallaabadiisa ku mudan wuu qaadan doonaa jamaal waxaa lagaa codsanayaa inaad gacaliya in ilmahaas qofkii soo geliyay caramel ay booliiska Minneapolis investigation weyn furaan lala helo insha allah bidnillahi kariim aad baan kuu salaamay walaalkay kaliya laab dhammaan shacabka Soomaaliyeed guuliga gobonimo Ilaahay baa khayr ka dhigay laakiin waxaa la dabagalayaa ilmahaas qofkii keenay insha allah ee meesha soo geliyay wixii ka soo kordhana waa idin la wadaagi doonaa assalaamu calaykum